Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada deeqdu idris journal. Maanta waxaan doonayaa inaynu qaadano application oo kuu sahlaya inaad si fudud sawiradaadii aad kaamirada ku gashay ku edit gareyn kartid, ku hagaajisan kartid adoo aan isticmaalin softwarada waaweyn oo kombiyuutarada sidoo kale Photoshop oo kale. Marka programkaasi faa'iidooyin badan buu leeyahay. Waa kaamirada halka idinka muuqata camera 360. marka ila soco. marka koowaad waxaad u baahan tahay inaad sawirkii aad hagaajin lahayd ama wax ka bedeli lahayd aad soo dooratid. marka sawirka waxaad ka soo dooranaysaa meesha ku yeelay talaan gallery oo kale ku yaalay waad ka soo dooran kartaa ama location kale oo kale dhigatay. marka koowaad waxaan sameynayaa sawirkan soo dooranayaa ila soco. sawirkaasaan soo dooranayaa calaamadda delete maaha delete ku xigta oo u taagan share si uu ugu furmo. waxaan doonaynaa sawirka inaan ku furno kaamirada kabacdi halkaas uu keenayo apps kala duwan yaaliin. waxaan sameynayaa halka u sareysa ay ku qoran tahay camera 360 baan taabanayaa. kabacdi halkaas uu keenay waxaan doonayaa inaan wax ka bedbedelo sawirka anagoo adeegsanayna featureskan kala duwan ee wadato kaamiradu halkan hoose daxan. marka koowaad waxaynu tegaynaa halkay color ku qoran tahay. colorka laba midab baynu adeegsanaynaa oo ah orange iyo yellow. orange-ga haddanu ku hormaro waxaynu soo furaynaa taasiranu wax yar ku daraynaa. tan hoose saturationkana wax yar baynu yana hoos u dhigaynaa. calaamadda tigta saxda u eg baan taabanayaa. yellow baan imanayaa kaasana wax yar ku darayaa. waxaan ka dhigayaa meelaha adigu fartanba. saturationka imanaya hoos baan u dhigayaa. waxaan ka dhigayaa adigu 19 kaasaan u deynayaa. calaamadda tigtaan taabanayaa. halkaas ay ku qoran tahay save baan taabanayaa. save markaan aan taabto waxaan tegayaa halka ay adjust ku qoran tahay. waxaan ka dooranayaa exposure-ka ku qoran tahay. wax yar baan ku darayaa. meelahaasaan ka dhigayaa. waa ka badin kartaa adoona hadba adigu requirement-ga ku xiran tahay. halka ay tone ku qoran tahay baan imanayaa. wax yar baan ku darayaa. meelahaasaan ka dhigayaa. halka ay time ku qoran tahay baan imanayaa iyana. wax yar baan ku darayaa. kabacdi save baan leeyahay. waxaan imanayaa halka ay portrait ku qoran tahay. sawirkayga waad aragtaa wuxuu marinayaa bahalkii iskaan buu marinayaa. waxaan sameynayaa halka fixed quality ku qorantaan dooran karaa. saasuu ka dhigayaa. smooth haddaan taabto saasuu noqonayaa sawirkii. whitening waa kaa tan oo kale saasuu noqonaysaa. aduu waa kaa waad aragtaa hadba saas jeceshahay waad ka dhigaysaa. kabacdi smoothkaas oo kale haddana u deyno saasuu noqonayaa. safe baan leeyahay. intaa markaynu samayno waxaanu leenahay waxaan ku dari karaa frame oo kale. framada kala duwan ayaan ku dari karaa kaanu jecelahay. kaasoo kale halkaas aynu dhex gelin karaa. kaasoo kale ka dhigi karaa. waxaad samaynaysaa markaa halkaas sare ku qoran tahay save baad taabanaysaa. sawirka saynu ogaano in wax iska bedeleen iyo sawirka hore farqiga u dhaxeeya saynu ogaano halkaas sawirka dushiisa basa u taabanaysaa. waa ka sawirkii hore markaan sii daayo saasuu noqonayaa. waad dareemi kartaa farqiga. marka adigu sidaa si ka wanaagsan baad samayn kartaa. casharkeenu maanta intaas ku jooga. marka ugu dambeysa waxaad taabanaysaa complete. halka complete ku qoran tahay baad taabanaysaa. sawirkii saas uu save gareysmay gallery-ga aynu ku tagayaa. gallery-ga ka helaysaa. Assalaamu calaykum.